السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان خيارتك وحيدا شبكة كدية جروب وسلامتين. maanta casharkeenu waxa uu ku saabsan yahay sidee loo bedelaa background login-ka ee Windows-ka sida Windows 10. casharkeenan haddii aan idin tuso ka hor inta aynaan bedelin background login-ka Windows 10-ka waxaan odhanayaa log background-kan ka dambeeya marka Windows 10-ka la shido amaba log loo diro oo lagu kala password. background-kan ayaan bedeli doonaa oo aan ka bedeli doonaa astaanta Windows. kadib sin in baan odhanaa intii aynaan casharka gelin waxaan idin tusinayaa qaabka amaba sida aad u soo download garaynaysid programka. waa program yar oo ah portable. programkan portable-ka ah sida aad u soo download garayn lahayd ayaan idin tusinayaa. browser-ka markaad sidaa u gasho waxaad iman doontaa halkan waxaad ku qori doontaa kadiyegroup.blogspot.com. markaad kadiyegroup.blogspot.com aad ku qorto waxaad iman doontaa qaybtan download-ka. kadibna waxaad ka tegi doontaa qaybta Windows ay ku qoran tahay. marka aad qaybta Windows tagto waxaa kuu soo bixi doonaa page-kan. kadib hoos ayaad u socon doontaa. hoos markaad u socoto waxaad tegi doontaa page-kan kale. page-kan kalena waad dhaafi doontaa sida aan filayo. page-kan ayuu ku jira. waa kan waxaa ku qoran Windows 10 change the background of login screen. kadibna waxaad ku dhufan doontaa dajisanka ayaad ku dhufan doontaa. markaad soo download garayso waxa uu ku iman doonaa meesha aad dhigtay. kadib ani waxba soo download garan maayo, waqti yar qaadanaysa, laakiin markaad download garanayso software-ku waa portable. kadibna sidan ayuu kugu soo degayaa isagoo wiraar ah. wiraarkana ayaynu doonaa inaynu ka extract garayno. markaynu ka extract garayno extract here baan odhanaa. kadibna waa kan programku waa kan programka ayaynu gelaynaa. markaynu galno waxaan ku dhufanaa labadan folder ee program ku dhex jira faylka aad soo download garaynay. waxaa ku jira laba folder. labadan folder kan hoose ay ku qorantay GUI ayaynu tegaynaa graphic user interface. kadibna waxaan ku dhufanaa halka waxaa ku qoran Windows 10 login background change. kadibna markaynu soo kacano halkan yes baynu odhanaa. yes markaynu idhaahno waxay noo soo saarayaa dhinacan kalena waxaynu odhanaa yes ma aqbashay aabayn leenahay. kadib wuxuu ina geyn doonaa programka marka sida inoo geeyo waxaynu aragnaa inuu ina siiyey view yar oo ah
computerka laftarkiisii viewdan xagganaynu iman doonaa edit a background. halkan waxaad ka dooran kartaa kalaro. halkan ayaad soo furaysaa, kadib kalar alaala kalarkaa doontid ayaad ku dhufan kartaa. haddii aad doonayso kan madowga, haddii aad doonayso kan, haddii aad doonayso view waad odhanaysaa, preview waad odhanaysaa. haddii aad doonayso huruudda, preview waad odhanaysaa. inagu uma jeedno kalar ee waxaynu doonaynaa inaynu sawir gelino. ayaynu imanaynaa, kadib halkan aan ku dhufanaa sawirkii aan doondoonaa halkii uu yaalo. kadibna sawirkan ayaynu soo qaadaynaa. kadib markaan sawirkan soo qaadno open baynu odhanaynaa. open markaynu nidhaahno sidaas ayuu ku galay. halkan waxaynu ku dhufanaa apply. okay waan leenahay. kan ayaynu iska soo laabaynaa. waxaynu tegaynaa log ayaynu u diraynaa. log markaynu u dirnay waxaynu arkaynaa inuu backgroundku isbedelay. haddii aan ka qaado kan, waxaan aragnaa inuu isbedelay backgroundkii, uu iska qaaday windowskii, astaanta windows. intaas ayuu maanta casharkeenu ku egyahay. waxaanu idinkaga tegaynaa mahadkediyo oo isku duuban. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. ha ilaawina subscribe, ha ilaawina inaad soo booqataan kadiyegroup.blogspot.com oo aad ka helaysid casharo qoraalo ah iyo kuwo video ah iyo softweerada. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.